waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u soo bandhigno qaybo ka mid ah dadkii bulshada ay ka caawinaysay oo qaybta baarista dambiyada CID oo kaashanaysa bulshada Soomaaliyeed ay ku guuleysatay inay gacanta ku soo dhigto. waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed markii ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ka adkaaday amnigii waxaa soo baxay dhalinyaro fara badan oo kaga faa'iideysanaysa duruufahaas bulshada ay ku jirto markii amnigii uu saaciday inay isku soo bixi karaan ay fagaaro imaan karaan ka dhax arkay hungurigooda in dhaqanka ay dooriyaan. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada qaybtiisa baarista dambiyada CID waxay gacanta ku soo dhigtay 10 eedaysane oo ka mid ah dadka baraha bulshada ka faafinaya dhaqan xumada oo ay ka mid tahay dhaqan xumada dhaqanka qoomuluudka dadka faafiya sidoo kale dadka anshax xumada faafiya waxa soo dhan waxay sumad u yihiin dhaqan doorinta bulshada Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinaa baariyaashii howlwadeennadii ka soo shaqeeyay dabagalka kuwan qaarkood ku dhaawacmay ceyrintooda ayagoo fakanaya baxsanaya ku dhaawacmay. waxaan leeyahay guulka gaara kuwan kaliya ma hadda goobta waxa fadhiyo waa 10 qaybta guudna waxa ku xiran kuwan lamid ah ayaguna waa soo bandhigi doona. taliska ciidanka booliiska wuxuu u digayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada qaybaheeda kala duwan haddii aad Facebook haddii aad TikTok haddii aad YouTube haddaadna ilaalin weysay oo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ay ilaalin weysay annagana ku ilaalin mayno. waxaad marti u noqon doontaa qolka mugdiga ah ee aan ugu talagalnay dadka dambiilayaasha ah ee dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaybahooda kala duwan iyo ummadda dhagaraheeda horaan u tafatirnay kuwii dadka dili jiray u daahimayno kuwa dadka dhaqankooda dooriyana inaan soo qabanno. waa mahadsan yihiin CID iyo qaybta guud iyo qaybta baaris CID aad iyo aad u mahadsan yihiin way ka jawaabeen baahidii ummadda Soomaaliyeed. waxaan nooga daran waxaan weydiiyay maanta midkood inuu iiga jawaabo yaa ogolaan iri walaashiisa inuu meel intuu soo istaajiyo aan weydiino walaasha see u jeceshahay xaajigaaga inuu habeenkii ku isticmaalo kulligood waa diiday in walaashooda la weydiiyo. waxayna rabaan inay gabar Soomaaliyeed weydiiyaan inay meel soo istaajiyaan ka yeeli mayno. waa daba taagannahay kuwa kalena waa soo qabanaynaa kuwaanna hadda si dhaqsiya maxkamad loo horgeynaa xukun ugu dhici doona insha Allah maxkamadda awood u laana xukumi doonta. waxaan uga digaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed isticmaasho baraha bulshada Facebook qaybta baaris dambiyada waxay yeelatay